السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام يا دمان إذا عد مارتي قيمة بدن ودواء يددوينها غير مدير دمان أرنتا وإيسو غارتي ساكي صلاة صبح كدب يا إيسو غارتي وأنا كحنون صدرنت صحنا يعني وحنون صدي أرنتا كو معها وقت بدن أياي دعدي هذا كور وان حسوستا إنتا صدر قبل أو مارتي لوصو عراري أو سيدا عمدو دلي واي إن مارتي adeeglaan darteed in sariirta la iska saaray ilaa qofkii aad ka nafbaxay ay sariirta yeeleen hadda ka hor way dhacday waan xasuustaa marna haddaan arrin noocaas ayaa dhacday marka arrintan waa arrin fool xun waa arrinta hadda gabadha sida hadda dadka sheegayaan inay gabadha maaragtay dad oo maybe ay qualified ay ahayn ma xaqiiqin kara kuley waa xaqiiqin doonaa in gabadhii ay qaleen inta qalliinka aan la gaarin hataa horteed gabadha yacni intaasoo wakti ay iska taallay haddana diifoole lagu xiray ninkii uu qarxay ninkii haddana si oo professional aan loo saarin marka arrinta arrin xanuun badan waaye waana arrin soo socotay mana qaadan karna intaa ka badan arrin noocan inay sii socoto waqtiga 21st century inay arrimo noocaas ay sii socdaan ma qaadan karna mana yeeli doono insha allah hadda muxuu yahay marka ujeedkaada shacabka maxaad ugu baaqaysaa laamaha dabcan qaabilsan dhanka caafimaadka iyaguna maxaad ugu baaqaysaa أنا waxaan leeyahay dadka oo shaqada u xilsaaran ilaahay ha ka baqeena ummadda ha u adeegeena hadda ninka hadlay wuxuu sheegay in Panadol hata aan laga helin isbitaalka marka isbitaalkii Mandera oo General Hospital-ka ahay in maartay aan laga helin daawayaal oo maartay kuwa hata painkillers-ka waa in la yaab leh waay arrintaas gaabanaga hata wuu ogaaday waana ka shaqaynaya hadda oo maartay task force ayuu sameeyay task force-ka ay hadda shaqadiisii socotaa كل إن شاء الله وحنا يبدل مان وانفرها يا لكن عرمان حتى دعي أو emergency كل أمارتي عادة inpatient عمل أما outpatient وأطلق لكن هذا عرين emergency ونوع عن عمله إيوه أنت تختارين وماشي عرفت عارف فلحر ولا عن التطوع qoysaska dabcan ayaga dhibaatadan ay soo gaartay maxaad hawada u marinaysaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ayaan leeyahay ilaahay kullay horta geeridii waqtiga ay qorantahay oo bay dhici inkastoo maartay dadaal darra aan la qaadan karin waxaan leeyahay sabar iyo iimaan ilaahayna gabadha ha u naxariista qabriga allah u waasici qabriga allah u nuuri su'aalaha qabriga allah ka fududeeye waxaan leeyahay sabar iyo iimaan ilaahay weyna waxda ha loo noqdo wax ka qiimo badan ilaahay cid ha ugu bedela anaga reer Mandera dhammaan iyo mas'uuliyiintana ilaahay weyna waxay tahay sabar iyo iimaan allah nasiya anagana maana naga wada dhintay